xilli saacadihii lasoo dhaafay warqabadka Kasmaal oo baahiyay in ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya ay tacdiyo fara badan ay ka geysteen qaybo ka mid ah gobolada dalka iyo magaalada Muqdisho ayaa haddana maantay hoggaanka sare ee AMISOM waxa uu sheegay in ciidamadoodu gabadfalla ay ka geysteen xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada Muqdisho. Hoggaanka AMISOM ayaa sheegay in ciidamadoodu xilli qarax lagu leegtay inta u dhaxaysa daarta Xeelo Bariise iyo warshadii hore ee baastada ee Muqdisho ay fureen rasaas xooggan taas oo waxyeello ka soo gaartay dadka shicibka ah ee ku sugan deegaanka suuqa xoolaha ee magaalada Muqdisho. Hoggaanka sare ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada AMISOM ay wadaan baaritaano ku aadan sababta ka dambeysay in ciidamada AMISOM ay rasaastaasi ay furan taas oo waxyeello ka soo gaartay dadka shicibka ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. Hoggaanka ayaa sidoo kale waxa uu qariyay xaqiiqda dhabta ah ee qaraxaasi ay geysteen ciidamada AMISOM waxaana uu sheegay in qaraxaasi uu ku geeriyooday mid ka mid ah dadka ku nool xaafadda suuqa xoolaha balse waxaana shaki ku jirin in ciidamada AMISOM had iyo jeerba ay qariyaan xaqiiqda dhabta ah. xilli Kasmaal saacadihii lasoo dhaafay ay baahisay in weerarkaasi ay ku geeriyoodeen ku dhawaad 10 ruux oo shicib ah oo ku sugnaa xaafadda suuqa xoolaha degmada Hiirwa ee gobolka Banaadir. Ciidamada AMISOM gobodfalada ay ka geysan Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay caadi ka noqotay isla markaana ma jirto xisaabtan dhab ah oo ay ku sameeyso dowladda Soomaaliya. AMISOM ayaa sheegtay in weerarkaasi uu jiro balse xaqiiqda kama aysan turjumin. ma jirto mas'uul ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka xanuunsaday falkii foosha xumaa ee ciidamada AMISOM ay ka geysteen magaalada Muqdisho. Hoggaanka ugu sareeya dowladda Soomaaliya oo ah madaxweynaha dalka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kama uusan hadlin tacdigii loo geystay ama xasuuqii ka dhacay deegaanka suuqa xoolaha ee magaalada Muqdisho. xilli waliba marka doorasho la qabanayo waxaa soo sharaxa musharaxiin badan kuwaas oo sheega in ay yihiin musharaxiin doonaya inay qabtaan xilka madaxtinimada ayagoona ballanqaad u sameeya shacabka Soomaaliyeed taas oo ugu horeyso dhanka amniga dhaqaalaha iyo horumarka balse ma jirto wax ka baxsan afka shacabka ayaana waxa ay arintaasi ay ka muujiyeen walaac xooggan xilli dalka oo ku jiro xilli kala guur ah isla markaana la filayo inay doorasho ka dhacdo ayaa waxa isu diyaarinaya shakhsiyaad badan oo doonaya inay qabtaan xilka ugu sareeya dalka oo ah kan madaxweynaha waxaana shacabka Soomaaliyeed iminka ay ka dhiragsan yihiin madaxweynaha dalka soo maray in aysan waxba ka qaban balse ballanqaadi hore ay ugu sameeyeen ay ku fashilmeen.